waxaa aad ii soo jiitay oraah dhahaysa wax walba aad ku riyooto waad gaari kartaa. waxaa wanaagsan mar walba inaad leedahay kalsooni aad ku xaqiijin karto riyadaada, sida ay doonto ha u weynaato. mararka qaarna waxaad dareemaysaa inay waqti qaadanayso riyada aad ku riyoonayso iyo xaqiijinteeda. dhab ahaantii waqti way qaadanaysaa, waxaadna kaashanaysaa sabar. haddaba waxaan halkan kugula wadaagi doonaa tallaabooyin ku haga isla markaana kuu kaana saacida sida aad u gaari lahayd riyadaada. midda koobaad waxay tahay xulo riyadaada. adigoo dooranin riyada aad doonayso inaad gaarto ma gaari kartid ilaa aad ka doorato riyo mucayan ah. tusaale ahaan waxaad tiri waxaan rabaa inaan noqdo doctor caan ah oo dunida dhan laga kasaayo. marka aad sidaa dhahayso waxaad dooratay riyadaada mustaqbalka. waa muhiim inuu qofka marka hore u yaqaano waxa uu ku riyoonayo oo uu doonayo inuu mustaqbalka gaaro. midda labaad waxay tahay riyadaada u beddel rabitaan. waa inaad leedahay rabitaan adag si aad u xaqiijiso riyadaada. waa inaad rabitaanka aad ku beertaa qalbigaada. midda saddexaad waxay tahay rabitaankaada u beddel hadaf. rabitaanka markaad qalbigaada ku beerto kadib waa inaad rabitaanka u isticmaashaa xaqiijinta hadafkaada oo kaa saacidaya inaad xaqiijiso riyadaada. midda afaraad samayso qorshe. si aad hadafkaada u gaarto waxaa lagama maarmaan ah inaad samaysato qorshe ku gaar ah, nooca uu rabo ha ahaado. midda shanaad qaybo ka dhig ahdaaftaada. qaabkan kala qaybinta ahdaafta wuxuu ku fududaynayaa inaad hadafkaada gaarto. markii aad sii kala dhigdhigto oo qaybo u kala dhigdhigto mid walba waqti sii, waa ay fududaanaysaa xaqiijinta hadafkaada. midda lixaad waxay tahay dib isku eeg. dib isku baar qaabka aad wax ku wado, meesha aad ka soo bilowday, meesha aad hadda marayso, waxa kuu dhiman, waqtigii aad qorshaysay ma ka dib dhacay. intaba waa muhiim inaad ku fikirtaa. midda toddobaad waxay tahay nafsadaada si xad dhaaf ha u dhibin. maskaxda waqti ay ku nasato sii, sidoo kale jirka waqti ku filan oo nasasho ah sii. waxay kaa saacidaysaa intaasi inaad gaarto riyadaada. ugu dambayntiina mar walba isku kalsoonow adiga. waxaan muuqaalkan ila wadaagayay anigoo ah Mahad Cali Cabdallah. halkanina waa Xogsida Media. fadlan haddaan kanaalkan ku cusub tahay ha ilaabin inaad subscribe garayso, gambaleelkana aad furato si ay kugu soo dhacaan muuqaalada aan halkan ka soo gudbinay ee joogtada ah. waana ku mahadsan tahay daawashadaada muuqaalkan.